hadduu qofku ilaahay jalla wacalaa uu garto uu khaaliqa garto uu ilaahay cilaaqaad la yeesho uu ilaaha aamirka uu garto amarkiisaa markaa u fududaanaya xuquuqdii ilaahay buu markaa garanayaa xuquuqdii addoommaha ayuu garanayaa diintuna waaba laba weeyaan waa xaq addoonkii ilaahay u dhexeeya iyo xaq u dhexeeya addoonkii addoommaha ilaahay labada weeyaan bini aadamku xawaa'ij badan buu leeyahay baahiyo fara badan buu bini aadamku u qabaa baahidii bini aadamku u qabayna ilaahay baa le taa aniga igu daaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin addoonku markuu sidaa yidhaahdo ilaahay wuxuu leeyahay haadaa baynii wa bayna cabdii addoonkii markuu yidhaahdo ilaahow adigoon baanu ku caabudaynaa gargaar iyo kaalmana adigoon baanu kaa sugaynaa ilaahayna waxau leeyahay haadaa baynii wa bayna cabdii taasi aniga addoonka inaga dhaxaysa minka alcibaadatu wa minii alcawn adigana cibaadadii ha kaa sugnaato annagana kaalmayntiiyo gargaarkii nagu daa buu ilaahay ku leeyahay adigu annagana raalli geli baa ilaahay ku yidha adigana annagaa ku raalli gelinayne araada lanaa shay wa araada binaa shay waxbaa ilaahay inaga doona innaka muxuu ilaahay inaga doonayaa ilaahay waxau inaga doonayaa inaan awaamirtiisa fulinno inaan isaga cilaaqo dhaba la yeelanno inaan isaga keliya tala saaranno inaan isaga keliya ka cabsoonno inaan isaga keliya rajayno inaan isaga keliya rumayno inaan isaga keliya barino taasaa ilaahay inaga doonayaa innaka inaan ka fikirno mar walba saacad walba daqiiqad walba maalin walba sanad walba bil walba maadaa yuriidu allahu mina ilaahay muxuu inaga doonayaa taas markii addoonka ay ka soo fushay isaga ilaahay waxa uu leeyahay annagana kaalmayntiiyo gargaarkii nagu daa haddii toole minka alcibaada wa min iyaaka nacbudu baa horraysa shardiga addoonka laga doonayaa horreeya mawcuudkuna u dambeeyaa markaas bal qur-aanka u fiirso in tansuru llaha yansurkum baa layidhi haddaad ilaahay u gargaartaan ilaahay waa nii gargaarayaa adcuunii astajib lakum baa ilaahay yidhi ibarya anna ducada markaa waa niga ajiibayaa ibarya waa niga ajiibayaa ii gargaara waa nii gargaarayaa minka alcibaadatu wa minii alcawn adigana cibaadadii iyo daacaddii ha kaa sugnaato kaalmiya gargaarkiina annaka nagu daa baa ilaahay ku leeyahay wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaati layastakhlifannahum fi lardi baa ilaahay yidhi kuwa iimaankii camalka saalixa laga hela waxa ilaahay u yaboohay inuu maamulka adduunka iyaka u dhiibaayo iimaan iyo camal saalixna waa matluub weeyaan khilaafa islaamiyana waa mawcuuda weeyaan mawcuudkii baa maanta ummaddu ay ku hanqaltaagaysaa matluubkiina waa laga tegay mawcuud lidaalika ilaahay addoonka waxbuu ka doonay muxuu ilaahay naga doonayaa ilaahay inaga wuxuu naga doonayaa inaan isaga keliya rumayno bas yaa mucaad atadri maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu alcibaadi cala allah buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam mucaad binu jabalow ma ka warqabtaa ma og tahay xaqa ilaahay addoonka uu ku leeyahay iyo xaqa addoommuhu eebba ay ku leeyihiin mucaad radia allahu canhu wuxuu yidhi allahu warasuuluhu aclam arrintaa ilaahayba iyo rasuulkaa iga oqon la buudhi aniga markaasuu nebigu ku yidhi yaa mucaad xaqa ilaahay addoommaha ku leeyahay waxa weeyaan inay dadku ilaahay keligii caabudaan oo keligii ay tala saartaan oo keligii ay rumeeyaan oo keligii ay baryaan oo keligii ay rajeeyaan oo keligii ay isku halleeyaan yaa ilaahay cidda isaga barida ee tala saaratay caabudana ilaahay tabaaraka wa tacaala in waxay xaq addoommuhu ilaahay ku yeesheen ciddii ilaahay caabuday cibaadada u barax tirtana inuu ilaahaysan cadaabin addoonkii baa xaq lagu leeyahay xaquna ilaahay buu addoon ku yeelanayaa bal diintan islaamka cadaaladeeda u fiirsada ilaahay waxau inaga doonaya innaka marka horraysa waa maxay inaan maaragtaane amarkiisa aan qaadanno sidii uu naga doonayay waa inuu naga helaa adduunyadana meel baahida bini aadamka lagu dhammaystiray ma ah adduunyadan waa caalam ujeeddo keliya bini aadamka loo keenay ujeeddadu waa maxay dadku inay adduunyada kala tagaan iimaan iyo camal saalixa halkan raaxa adduunyada ma taallo adduunyada raaxa hadday taallana dadki ilaahay jeclaa buu raaxada siin lahaa low kaana liibni aadama waadiyan min dahab axaba an yakuuna lahu waadiyaan walan yamlaa faahu ila turaab wayatuuba allahu calaa man taab baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam adduunyada raaxa ma taallo meel baahida bini aadamku ay ku dhammaystirmaysana ilaahay adduunyada kama dhiginba kulligeen nin walba baahi nambarraa ka qaldan ninay nambarra u saxsan yihin caalamka ma jiro gaal iyo islaam caddaan iyo madow ka adduunyada ugu dhaqaalo badan ilaa ka adduunyada ugu hooseeya dhammaan way baahan yihiin baahidooduna adduunyada kuma dhammaystirmayso
nebigaa sheegoo yidhi inaadan haddii la siiyo tog dahaboo socdo qulqulaaya kun labaad buu jeclaan buu rasuulku yidhi meel baahida bini aadamku ay ku joogsatay adduunyada lagama dhigin bal adduunyada waxaa loogu talagalay meeshii laga sahay qaadanaya sahayda la qaadan waa maxay watazawaduu fa ina khayra azaadi taqwa sahayda la qaadanaya waa la kayaab weeyaan alkhawfu min aljaliil waalcamalu bitanziil waalqanaacatu bilqaliil walisticdaadu liyowmi raxiil buu imaam cali ku fasiray taqwada ilaaha jaliilkoo laga cabsado qur-aanka oo lagu dhaqmo qanaaco oo la yeesho qofku arsaaqada intii eebba ugu talagalay uu ku qanco maalinka dadku ay u guuri doonaan loo intiqaalayana waa inuu addoonka mu'minku u diyaar garoobo weeyaan adduunkan waa meel laga sahay qaadanayo weeyaan sahayda la qaadan waa maxay sahayda la qaadan waa iimaan iyo alla kayaab weeyaan wax kale maaha iimaan baa la qaadanaya iyo alla kayaab marka insaankan waxaa adduunyada loo keenay bini aadanka laga dooni waa inuu fahmo waxa ilaahay uu ku siiyey ee nicmadoo dhan wuxuu ugu talagalay inaad u adeegsato inaad ku gaadho macrifada ilaahay taasaa adduunyada lagu keenay laakiin nasiib darro ayaan darro dadku maanta dariiqii loogu talagalay intay ka weecdaan kulligeen waxaan badanaa dadku maanta waxay ku dadaalayaan ilaa man raxima rabbi siday makhluuqa u garan lahaayeen iyo siday makhluuqa uga faa'iidaysan lahaayeen nebiyaduna calayhim assalaam waxay la yimaadeen siday bini aadamku khaaliqa u garan lahaayeen khasaa'inta khaaliqana ay uga faa'iidaysan lahaayeen taasay nebiyadu la yimaadeen nebi ilaahay ma soo saarin oo qur-aanku ma sheegin dadka maaragtaane u sheegay ama u tilmaamay sidaa arlada looga faa'iidaystee bal nebi walba wuxuu la yimiday siday dadku ay ilaahay ugu xidhmi lahaayeen deedna iimaankii camalka saalixa ay khasaa'inta ilahi ugaga faa'iidaysan lahaayeen taasay nebiyadu la yimaadeen qowmu nuux way tiro badnaayeen qowmu caad way quwad badnaayeen qowmu hamuud khibrad bay lahaayeen sanaacadday khibro u lahaayeen qowmu shucayb tijaaraday khibro u lahaayeen qowmu saba ziraacadday khibro u lahaayeen qowmu ibraahiim boqortooyaday khibro u lahaayeen qowmu ciisa tibigay khibro u lahaayeen qowmu moxamed luqada iyo balaaqaday khibro u lahaayeen carabtuna dadka caalamka soo maray ummad walba waxbay ku faanaysa oo xirfo u ahay ummad walba waxbay tala saaranaysay ummad walba agtooda waxbaa qiimo ku lahaa laakiin nebiyadu waxay la yimaadeen waa shay keliya weeyaan wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun nebiyadu waxay la yimaadeen dadka inay ku xidhaan ilaaha khaaliqa bas ilaaha macbuudka dadku ilaahay inay gartaan cibaadadana ilaahay u badhaxtiraan baryada ilaahay u badhaxtiraan ilaahay keliya cilaaqo la yeeshaan maa siwa allah oo dhanna ay cilaaqada ka goostaan taasay nebiyadu adduunyada la yimaadeen bal sheega qur-aanka ka sheega nebi ummadda wax kale ugu yeedhay qur-aanku ma sheegin afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha illa allah buu rasuulku yidhi nebiyadu maxay la yimaadeen nebi kaste caalamka markuu yimiday waxay ummadiisu haysato wax ka horumarsan ulama iman bal wuxuu ula yimiday shaygan dadku ay haystaan wuxuu nebi walba ummaddiisa u sheegay inuu yahay shay yaroo manfaco gaaban tijaaradda manfacadeedu way gaaban tahay ziraacadda manfacadeedu way gaaban tahay sanaacadda manfacadeedu way gaaban tahay quwadda manfacadeedu way gaaban tahay waa ifka inta la joogan baa laga intifaaci deedna waa laga dhiman laakiin nebiyadu waxay la yimaadeen shayga bini aadanka ifkana anfacaya qabriga ku anfacaya qiyaamaha anfacaya jidka siraad anfacaya jannada gelitaankayga ay ku mutaysanayaan iimaani camal saalixa weeyaan shaygaas fa ilaahay jalla wacalaa bini aadankan waxa uu ka dhigay qalbigii caalamka bini aadanku waa qalbigii adduunyada weeyaan hadduu islaaxo bini aadanku koonkao dhan baa islaaxi hadduu bini aadanku xumaadana koonkao dhan baa xumaan dadka qalbiga ka bukooda dawo male baa la yidhi haddii koonku baa la yidhi qalbigiisu waa basharke hadday basharku islaaxaan caalamkao dhan baa islaaxi hadday basharku xumaadaan adduunkao dhan baa xumaan bini aadankuna halkuu ka islaaxaa halka bini aadanku ay ka islaaxaan dhagaha iyo aragga iyo gacmaha midna maaha halka bini aadanku ama ay ka xumaadaan
أما كإصلاحان وقلبك ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب بالنبي قول عليه الصلاة والسلام بني آدم قالوا كإصلاح وقلبك ويان هلك وكحم هذا وقلبك ويان قلبك محوكو إصلاحيا قلبك وحوكو إصلاحيا شيء الله قلت لك لقلبك مركو فريستو قلبك إصلاحيا شيء الله قلت لك لقلبك مركي لقوا هنا قلبك وحمانا يا مركز قلبك محل الله قلت لك ليه قلبك waxa kaliya loogu talagalay inay fadhiisato ilaahay macrifadiisu iimaanka meeshiisu waa qalbiga weeyaan walamma yadkhulu al-iimaanu fi qulubikum ba ilaahi iimaanka halka uu iimaanku fadhiisto waa qalbiga weeyaan nabiyada waxa loo soo dirayna inay kelimada tawxiidka qaadaan oo meeshii loogu talagalay ay gaarsiiyaan ayaa nabiyada loo soo saaray calayhimus salaam taasay ku dadaaleen nabiyadu hadduu qofku ilaahay jalla wacala uu garto uu khaaliqa garto uu ilaahay cilaaqad la yeesho uu ilaaha aamirka uu garto amarkiisa markaa u fududaanaya xuquuqdii ilaahay buu markaa garanaya xuquuqdii addoomaha ayuu garanaya diintuna waaba laba weeyaan waa xaq addoonkii ilaahay u dhaxeeya iyo xaq u dhaxeeya addoonkii addoomaha ilaahay labada weeyaan nabiyaduna calayhimus salaam bini aadanka halkay kaga dadaaleen waa qalbiga weeyaan qalbiguna wax kale kuma islaaxee qalbigu waxa ku islaaxaya waa laa ilaaha illa allah haday fadhiisato wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu haqqa biha wa ahlaha ibn abbas wuxuu waa kalimata tawxiid ilaahay jalla wa ala quraanka waxa uu ku sheegay asxaabu muhammad qulubtoodii inuu dhex fadhiisiyay kalimatu taqwa ibn abbas wuxuu ku fasiray waa kalimatu tawxiid laa ilaaha illa allah weeyaan asxaabta nabiga halka markay kelmadaas qalbiga ay u gashay xaq ilaahay bay garteen xaq nabiga ay garteen xaq waalidiinka ay garteen xaq ubadka ay garteen xaq dumarka ay garteen xuquuqdii jaarka ay garteen xaq qaraabada ay garteen xaq muslimka ay garteen xaq bahaayimka ay garteen xuquuqda ay gaaladu leeyihiin bay garteen waxay noqdeen khalqi caalamka dhan anfacay noqdeen khalqi caalamka dhan anfacay وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي زمنك نبيك حقيقة كن نقطة عالمك فمركا بني آدم كنا بالليل وحا وكدد على النتيجة ديس وهليا هدي تدخل كدد على أدوية منفعة ذا وهليا هدي دينتي إيمانك كدد على منافع الدين والإيمان وهليا تدخل haddii adduunya lagu dadaalo adduunyada waa la heli waxaan biroo dhan adduunyadan waa dhooban weeyaan waxaan maanta caalamka oo dhan guuxaya birtaa iftiimaysa birtaa hawada keenaysa birta qeylada dheeraynaysa birta caalamka kula hadashiinaysa birtan caalamka loo raacayo birtan caalamka hadalkaaga u tuuraysa waxaasoo dhan waa natiijatu tiin weeyaan dhoobada laga soo saaray waa macdantii arlada laakiin arlada khayraadka goormu ka soo baxay waa markay bini aadanku ay arlada u fikireen weeyaan fikirkii markii loo fororiyay arlada sideen uga faa'iideysanaa manaaficdii arlada markaa soo baxday manaaficdii arlada markay soo baxday maxaa dhacay bini aadankii qiimihiisii hoos buu dhacay laakiin berihii iyo qoryihii baa bini aadankii ka qiimo batay imika mata imsama sooma hinde macaawista iyo qofka maanta midkee qaalisan magaalada muqdisho bal ka jawaaba ya meeqa iyagoo salaadii subax u socda macaawis laga saarto la dilay bini aadankii qiimihiisii hoos buu dhacay caalamka maanta maxaa horow maray dadka maanta waxay leeyihiin zamankan waa zaman alcasri waa horumar waa taqadum zamankan taqadum maaha waa ta'akhur weeyaan taqadum waxaa la yidhaahdaa waa zamankii nebiga calayhi salaatu wasalaam zamankii nebiga bini aadankaa horow maray zamankana maanta berihii iyo xadiidkii baa horow maray war maan qaldanahay mise waan toosanahay ya bal ka fikira awey cadaaladii awey kala dambayntii awey maxabadii awey ixtiraamkii awey iska warhayntii awey isku naxariisashadii awey
sifaadkii insaaniyadda loogu talagalay caalamka way ka zuushay sifaat alxayawaaniya baa maanta adduunyada ka dhacaysa nin walba wuxuu ka fikirayaa sideen anigu noolaada sifaat alxayawaaniya waa maxay xayawaanku waxa weeyaan xayawaanku waa 4 martabay leeyihiin 4 darajo imsa darajo 4 xayawaanka la yidhaahda bahaayimka la yidhaha almawaashi walbahaayim cidna ma dhibaan maslaxadoodana way ka fikiraan cidna waa shimbiraha geela lo'da ariga dameeraha fardaha wamaa ilaa dalik maslaxadooday yaqaaniin cidna ma dhibaateeyaan lo'diioo biyo raadinaysoo arooraysa saca u dambeeya hadduu biyo helo intuu iska cabuu iska dhex marayaa kuwa horena u sheegi maayo xayawaanka dabaqad waa taa weeyaan dabaqadda labaad waxa weeyaan waa sibaac dugaagga la yidhaha dugaagga libaaxa iyo dhurwaaga iyo shabeelka iyo yeyga iyo dacwada iyo ilaa ay dhiig daadiyaan may dhargaan ma dhargaan basharka maanta nuuc baa sidaasa maanta caalamka dhiigga walaalkii uu daadinayo ayuu maaragtaan isagu ka faa'idaysanayaa ilaa uu dhiig daadiya xaajadiisu ma gudmayso dabaqadda ku xigta waxa weeyaan alxayaat waalcaqaarib xayawaanka la yidhaah abeesada iyo dabaqalooc baalkan aad tidhaahdiin iyo masaska iyo jidkaabuu sun la fadhiisan cid alle ciddii soo martuu qab ku siin wax faa'iidou ka helayana habeeraatay isagu ma jirto bini aadamku maanta caalamku waa 3daa weeyaan inaka waxaad leeyihin mooryaantii caalamka mooryaan casriyaysan baa jirto o dawladaysan inaku war uma haysaan 3daa sifaa maanta bini aadamku ay leeyihiin dadka ugu fiican maanta adduunyada waa dadka aanan dhibaynin maslaxadoodana ka fikiraaya waa muslimiinta cubaadda la yidhaha ahlulcibaadada ah qolana waa dabaqadda labaadoo ilaa uu dhiig daadiyo xaajadiisu ma gudmayso qaybta saddexaadna waa maxay jidkaasuu dhibaato la fadhiisanayaa ummadduu dhibayaa wax faa'iiduu ka helaya habeeraatay ma jirto hay sifaddii insaaniyaddu aawey sifaadkaa waa sifaadkii xayawaaniyaddee aawey sifadii basharka loogu talagalay sifadii basharka loogu talagalay nebigaa sheegoo yidhi laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibuhu linafsihi oka sifaat alinsaaniya waa sifaddaa weeyaan iimaan male buu nebigu yidhi ilaa qofku wuxuu naftiisa la jecel yahay walaalkii la jeclaado